wafdi ballaaran oo ka socotay hay'adaha qaramada midoobay ee United Nations ayaa maanta ka soo degay madaarka caalamiga ah ee magaalada Berbera iyadoo madaarka magaalada Berbera ay wafdigaasi ku soo dhaweeyeen mas'uuliyiin sare oo ay ka mid ahaayeen wasiirka arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Somaliland علي محمد وران عدى يسيدو كلا تليها عندما إلى حبها جمهورية الصوماليلان ترى أحمد وعثمان يسيدو كلا مسؤولين تقبل كي يدقمد بربرا يسيدو كلا مامور كدكدا وحنا وفد قاسي ومدكو بنكسرنا ذلك جمهورية الصوماليلان قارهنا مقالة بربرا أي بوغدين حرونت عندما إلى حبها الصوماليلان يسيدو كلا حرونت كلوميسيغا أي بربرا وزير كارمها جودها جمهورية الصوماليلان علي محمد وران عدى يتليها عندما إلى حبها الصوماليلان ترى أحمد وعثمان أي سكسيي xaaladda guud ee dalka Jamhuuriyadda Somaliland iyo sidoo kale arrimaha dhinaca la dagaalanka burcadbadeeda iyo nabadgelyada dalka Jamhuuriyadda Somaliland sida uu horumarka uga gaadhay intaasi kadib wasiirka arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Somaliland Ali Maxamed Waran Cadde ayaa ka waramay wafdigan iyo ujeedada socdaalkoodan ay ku yimaadeen dalka Jamhuuriyadda Somaliland isagoo sidoo kale tilmaamay in ay wafdigaasi ay indheynayeen xaaladda guud ee dalka Jamhuuriyadda Somaliland gaar ahaan dhinaca horumarka la dagaalanka burcadbadeeda ee dalka Jamhuuriyadda Somaliland ay ku talaabsatay sanadadii u dambeeyay iyo waliba sida ay ciidanka ilaalada xeebaha Somaliland ay ula dagaalamaan burcadbadeeda wasiirka ayaa waxa uu tilmaamay in wafdigaasi ay wax badan ka caawin doonaan dalka Jamhuuriyadda Somaliland booqashadoodaasi kadib badan dunida ayuu ka socdaa wafdigan United Nations Mareykanka Ingiriiska Scandinavian marka waxa weeyaan wafdi ballaaran oo ilaa 18 ka kooban waxaanay u socdaan sidii ay u leegi lahaayeen oo hay waxyaabaha ay la qaban karaan Somaliland waxaana runtii halkan isugu nimid in dhinaca muxuu haayay dhinaca badda iyo hawlaha ay ka hayno inay eegaan maadaama mariyahan dambe muxuu haayay burcadbadeeda iyo mashaakil badan ka jiray badaha Geeska Afrika marka runtii inay eegaan oo ay controlaan bay muxuu haayay iyo horumarkeenu ka gaadhnay inay eegaan bay u yimaadeen waxaan socdaa insha Allah wax badan la qaban doonaan si loo ilaaliyo badaha Soomaaliya